والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وصحبه وسلم وهي لا تهي وهي نسوون نمي إلى نود بالدقنو سنة قردي اللباد خاتمة State of Somalia
waxay kaloo ila tahay dadka meesha isugu yimi hadday reer khaatumo yihiin waa reer khaatumo inta aan reer khaatumo ahayna inay yihiin dad ayiday oo aqoonsaday Khaatumo State of Somalia haddaan isaga kiin warramo anigu waxaan u malaynayaa nin iga baahi weyni maanta Soomaaliya inaanu jirin weligeena hadda kama shaqayn ninkaa yar aad arkaysaana waa ahay weli shilin kama qaadan aan haddana ma damacsani laakiin haddana nin iga baahi weyni ma jiro waxaa ii muuqda dabayshii wanaagsanayd cadkii macaana caanihii firishka ahaa inaan tago oo ku noolaado waa jeclahay Soomaaliya waxay soo martay marxalad adag way burburtay haddii ay burburtay waxaa laga sameeyey dowlado badan baa isku dayay Djibouti 1 Djibouti 2 Addis Ababa 1 Addis Ababa 2 waxaasoo dhan halkan aanu kala daawanaynay raggii maalintaa ka tumayey oo fanaaniinta waaweynaayo alkaroomo kale ahaa iyo waxba kama noola maanta wax yar baa ka haray yamyam baa dhintay Abdullaahi Qarshi baa dhintay waxaa dhintay Faadumo Qaasim you name it dad kaleeto odayaalina waa dhinteen waxaa la yidhi dowladda la sameeyo caliyaa markaa bilaabmay caliyo magaca cali la yidhaahdaa ina qabsaday عيديد علي مهدي عبد القاسم عبد الله يوسف نيكان مقعيس شريف دان سقل رئيس الوزراء عايك كبلابني وعبد قولها حق هرقيسة عقال حق مركي عقال دان عبد الله يوسف وحسمي بدلان waxaa ka qabsaday ila Cabdi Xaashi waxaa ka qabsaday Cadde waxaa ka qabsaday ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Faroole haddana Cabdulweli Cali Kaas caynkaasay ku socotaa caynka galmudug Cabdi Qaybdiid ya caalin caynkay ka socotay waxa ay cayn maraysay dowladdii waxay dhaafi weyday afgooye ee galbeed u dhaafi weyday xagana baalcad bay dhaafi weyday barmagaca bedelo caynka la yiraahdo okay haddii dowladdii ay qabsan weydo I don't blame the dowladda waxaan blame garaynayaa dadka Soomaaliyeed waayo dowladnimadu ma aha askari inaad meel walba dhigto oo aad tiraahdo feeriya faranji iyo xoog ma aha dadkay ka timaada oo u hoggaansamo dowladnimada haddii dowladnimada dadku u hoggaansamo dowladdu waa soconaysa meel buu gaaraysa haddaanay u hoggaansamin dee socon mayso inagaan u hoggaansamin dowladnimadii haddii dowladnimada markaa socon weyday afkooyana dhaafi weyday lagama marmaan waxay noqotay in la samaysto maamul goboleedyo waxaan anigu markaa aaminsanahay maamul goboleed oo dhan faa'iido waxaan ahayn male maamul goboleed miduu yahayba waa ayidsanahay ilaa la helayo dowlad Soomaaliya wada saamaysa oo dadku u hoggaansan yahay inta ka horeysa in nin waliba gurigiisii dhisto oo maamusho oo wax keensado hay-ada keensado dhakhtarna ka dhisto iskuulla ka samaysto oo ismaamul waxbay taraysaa Khaatumo State maanta haddii caasimadda talaha tahay bareejarka waxay ka qaadaysaa kuwa hareeraha ka xiga iyagaa keensanaya hay-adahoodii iyagaa iskuuladoodii dhisanaya iyagaa isku filan dad mutacalimiin oo jaamiciyiin oo fara badan oo professorraad ay leeyihiin marka waxaan leeyahay Khaatumo waa socotay horta iyadu soo noqon mayso waxaana leeyahay dadka kale oo Soomaaliyeedna waa inay ayidaan
waa inay aqoonsadaan waa inay waxay uga baahdaan oo gacana u fidiyaan hadalka raggii iga horreeyey ayaa haddii dad aftahamaliya kaa horreeyaan waa kaa laastaan hadda rag iyo dumaroo dad iga aftahamo badan baa meeshaasi soo taagay way iga laasteen waxaan ku hadla oo kaleetana garan maayo aan ahayn khaatumo isteed ha noolaato puntland ha noolaato maamulada kaleeto oo jira ha noolaadeen nabadgelyaha ku wada noolaadeen walaalnimaha ku wada noolaadeen warwaaqaha ku wada noolaadeen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan yahay xaaji daahir ciise ramaadin sidan meesha u soo saaraysa iyo ka badan bay ahayd aftahamada indheergaratanimada iyo soomaalinimada waa ku mahadsan yahay hadalladiisa qiimogalka ahaa haddana odayadu ma kala dhacaan gabdho badan oo loo yeedhin baan fadhiya oo meesha mudan in loo yeero looma wada yeeri karo ragga iyo gabdhaha mid walba marka hadda waxaan dhallinyaradii cuslaatay haddana waxaan u yeerayaa jenaraal cabdiraxmaan khaliif dhicis oo isaguna mar walba khaatimo isaguna yimaa dadka sabootariska ah ee garab taagana aana taqaanaan jenaraal cabdiraxmaan khaliif dhicis dadka akhyaarta sharafta leh ee xafladdan fadhida waa idin salaamaya khaatumo waa hambalyeynaynaa sanad guurada labaad ee khaatumo state waa hambalyeynaynaa khaatumo anigu waxaan u malaynayaa odayaasha hore aan ka mid ahay khaatumo anigu waan soo xukumay iyada oo ka tirsan gobolka hadda la yidhaahdo nugaal oo garowga laga xukumi jiray berisamaadkii bay dadku yidhaahdaan waagu kacaanka cusbaa bay ahayd 1974kii abaarihii iyo ololihii af soomaaliga gobolka waagaas laascaano xataa sool lama odhan jirin oo sool gobolka la yidhahdo wuu ka dambeeyey oo markii ay ka go'day gobolka nugaal degmada laascaano ayaa la odhan jiray markaas dadka deegaankaas waa dhul qurux badan sidii dadkii iga horreeyay sufeeyeen dadka deegaanka degaana runtii waa dad aada u wanaagsan dadka khaatumo dega waa dad halgamayaala runtii khaatumo dagaalkii ugu horreeyey ee xornimo soomaali lagu doonayey ee daraawiishtii dadkii daraawiishta ahaa ee sayid maxamed hogaaminayey 80% reer khaatumo ay ahaayeen khaatumo waxay ka qayb gashay dagaalkii xornimadoonkii ingiriiska lagaga xoreynayay gobollada waqooyi khaatumo waxay ka qayb gashay midnimadii soomaalida ee noord iyo south xornimadii 61dii ama 60kii qayb bay ka qaadatay khaatumo oo raggii midnimada iyo isku darka hogaaminayey garaad cali jaamac ayaa ka mid ahaa dadka khaatumo dega suugaanta iyo dhaqanka iyo hiddaha soomaalida lambar 1 bay u yihiin waad ogtihiin oo gabayaasha soomaalida ee maanta ugu qiimaha badan ragga tiriye badidood reer khaatumo ay ahaayeen dadka dhaqanka iyo hiddaha ka soo shaqeeyey ee maanta maaragtay ee soomaalidu ay ku faanto inta ugu badan ama ka mid a reer khaatumo ay ahaayeen marka horta khaatumo runtii midnimada soomaalida iyo dhaqanka soomaalida iyo taariikhda soomaalida dowr weyn oo muhiima ayay reer khaatumo ku leeyihiin
oo aad iyo aad loogu ammaani karo muuqatana oo qof dafiri karaa uusan jirin reer khaatumo waxay u taagan yihiin maantana halgankaa dheer aan ka soo warnay ka soo sheekayna mid la mid ah midnimada soomaalida iyo qarannimadii soomaalida ee quruxda badneed inay qaybtooda ka qaataan ayay u taagan tahay khaatumo una dhisan tahay markaa khaatumo ammaan badan bay inaga mudan tahay iyo inaynu saboodgarayno oo dadkaas deegaankaa degaan waxa ay doonayaan aan ku ayidno waayo dalka soomaaliya waxaan ognahay burburkii ku dhacay dowladdii dhexe ee soomaaliya ee burburtay markaan anigu meelahaas ka hadlay burburkii waayoxsho waxaana la odhanayaa sanadnimadii ciidanku ka mid ahay maxay hadda sheegayaan iyagaa dalka sabab aha burburka taa horta yaana lagu canaanin shaqo kumaanaa lahayn xaqiiqda ninkii soomaali runteeda og iyo xogteeda hoose waxaa la yidhaahdaa umulise iyo oday reer u weyn midna siduu xoog yahay uma sheego dad weynuhu wax fara badan aynu ogeyn baan anagu ogna weliba ragga nagii ciidamada ahaa wixii burburkii soomaalida iyo tabar xumadii ciidamada anigu meelo badan baan ka shaqeeyey ciidamada runtii qaybaha ugu waaweynaa ee dalka baan ka soo shaqeeyey baydhabaan joogi jiray qaybta lixdanaad 21aad baan joogay markii ugu dambeysay aydhkii ee dagaalada sokeeyey ay dhulka uga socdeen wax fara badan baan ognahay marka waxba yaan annaga taana lagu baleem garaynin dhibo badan oo kale ayaa jira taana ciddii lahayd unbaa mas-uuliyaddeeda leh burburka soomaaliya way burburtay xaqiiqda marka kor waayeel waa wadandhaa la yidhi wixii dhacay waynu wada ognahay marka waxaa loo baahan yahay soomaaliya haykal guud bay maanta samaysata oo la yidhaahdo federaal waxaa la doonayaa marka qof walba ama deegaan walba inay horta iyagu samaystaan nidaamkooda yacni wuxuu hadday kala daataan kabka badan bay u baahan tahay soomaaliya marka deegaankii yidhaahda annagu wax iyagaan samaysanaynaa waan ishabaynaynaa hadhowna federaalkaas guud baan ka mid noqonaynaa ahlan wasahlan waa in gacan lagu siiyaa maaha in laga hor yimaado oo la yidhaahdo no waxba ma qabsan kartaan waxba ma samaysan kartaan yacni hadda waxaa jira dhulal badan oo runtii wax qabsaday masalan galmudug baa jirta xumin iyo xeeb baa jirta kuwan kale ee muxuu ahaa jubbaland iyo puntland iyo somalilan iyo waxaasoo dhan waa maamullo wada socdo oo wada hirgalay marka deegaankii yidhahdo waxbaan qabsanayaa maaha in laga hor yimaado waa in lagu saboodgarayaa gacan lagu siiya maaha lugta in la jiido marka khaatumo waxaan leenahay 2 sanay jirtaa way wanaagsan yihiin meel walba oo wax kasta oon in lahayna ma jiro kuwaan hadda hirgalay oo jira naftooda haddii loo firiyo cilladaa jira marka cillad way iska jiraysaa dowlad kasta oo weyn tanaynu joogno cilladaa jira maraykanka adduunka weyn waad ogtihiin inta cilloodan iyo dhibaatooyin ay jiraan marka horta haddii wax yaroo khaladi dhacaan yaan lagu ceebaynin qoladii wax yaroo khalada lagu arko waxaan leenahay khaatumo waan bogaadinaynaa waxaan u rajaynaynaa inay hirgasho waxaan u rajaynaynaa inay u taagan tahay muxuu ahaa midnimadii soomaalida iyo qarannimadii soomaalida inay soo noqoto qayb weyn ka yihiin khaatumo meel istaraatiijiga ayay dalka kaga taallaa waayo waxay isku xidhaa waqooyi iyo sawd bay isku xidhaa waxa weeye waa bridgekii labadii soomaalida talyaaniga tii ingiriiska laysaga gudbeeyey wey khaatumo marka meel aad muhiimana dalka ayay kaga yaalaan marka waxaan u rajaynaynaa khaatumo inay hirgasho in dadkeedu u midoobo in ay isku mid noqdaan ka bacdina haykalkaa weyn ee dalladaa weyn ee soomaaliya isugu imanaysa ee federaalka ay qaybtooda ka soo qaataan intaas baanu khaatimo aan muxuu ahaa ku soo goynaynaa inteena kalena de soomaalideena kalena soomaali si baynu u kala daadanno runtii maaragtay waxaad mooddaa waddaninimadii inay naga xumaatay waddaninimadii bahalka adduunka oo dhan horta meelaan dagaal sokeeye ka dhicin ma jiro maraykankan adduunka ugu xoog badan waynu ogna waa kii nagtas ka geliyeen sood iyo noord isu laayeen okay dagaalladu faa'iidana way leeyihin khasaarana way leeyihin hadda wax badan oon qabsannay 22 sano burburka ahaa maynan waxaa laga yaabaa haddii dowladdii weyneed dhisantahay inayna waxaasoo wanaaga gaadhneen nin walba wuu isku tashaday nin walba gobolkiisiibuu ku noqday wuu dhistay yacni wax fara badan oo wanaaga waynu qabsannay hadda waxaa naga maqan keliya dowlad dhexe oo adag inaynu yeelanno gobolladii oo dhan ay ku soo xidhmaan
xamar oo caasimadii oo ninkii xamar joogi jiray ee arki jiray quruxdeedii iyo nabadgelyadeedii iyo siday ahayd waxay la tahay inuu dadkii yimid baa malaha garanaya ee tegay aanu kolley maana tegin xamar sidii ku dhacay waxaa qalbiga xanuunaya marka waxaan u rajaynaynaa Soomaali inay sideedii hore ku soo noqoto wanaaggii iyo quruxda aynu lahaydna aynu soo ceshano qof kasta oo Soomaali ah qaybta uu ku leeyahay qarannimadii Soomaalida waa in uu xusuustaa intii uu ka qabsan karana ka qaata dowladda hadda maanta jirta oo xasan sheekh maxamuud oo madaxda u yahay waxaan rajaynaynaa iyo prime ministerka cusub ee Cabdiweli in ay wax badan bay ummadda Soomaalida u baahan tahay in ay waxay Soomaalidu u baahan tahay 3 sano ee dowladda u hadhay ay qabtaan in nabadgelyada muhiimo nimankan la leeyahay shabaabka ee madaxa duuban waa la dagaalami karaa laakiin waxaad moodaa inaga geesinimada hor Soomaali geesiniin bay nahay geesinimada iyo aqliga badan iyo isla weynida kibirka waa wax ayna kharibay runtii waxa weeye haddii aanu qumaati soo habayno aniga waxaan qabaa inaynan shabaab saa inoogu dhannayn wiilal yaryar oo hawdka ku dhuundhuubanaya waxaan u baahanahay ciidan yar oo wanaagsan oo aan badnayn yani dadku waxay iminka 18 baa la marinayaa ciidamada muxuu ahaa Amisom ee Soomaaliya joogta 18 maxay qabanayaan magaalooyinka ma dhaafayaan nimankan Afrika laga keenay in dhintaan ma doonayaan lacag iska urursanayaan marka xabadda markay ridayaan madaxa hoos u dhigaan waa kaas 18 Soomaali haddaan helno oo ciidamadan la leeyahay qaar waxaa lagu tababarayaa Uganda Kenya Djibouti iyo meelo ka sii fofog dalka gudihiisa lagu tababari karaya 18 ama 20 oo Soomaali oo la tababaray oo qalabkooda loo habeeyay wallahi inaan 1 year ku qaadateen agta la marin lahaa waxaas oo dhan marka waxaan rajaynaynaa dowladdan cusub inay waxaas oo dhan oo ummaddu u baahan tahay qabato insha Allah Soomaali oo sideedina aynu aragno inteena wada nool oo wada qurux badan insha Allah khaatimana waxaan u rajaynaynaa inay iyadoo khaatimo oo sii kortay oo xoogaysatay marka waa dabbaldegi labaad baan u malaynaa waa laba jir weeye imka khaatimo oo xoogaysatay oo muruq yeelatay oo ka qayb gashay federaalka iyo qarannimada Soomaalida inaynu aragno mar kalena aynu u dabbaldegno aad baad u mahadsantihiin intaasaan ku soo qaadana insha Allah waa mahadsan yahay General Dhicis aad buu mahadsan yahay General Cabdiraxmaan Khaliif Dhicis waa dheer yahay laakiin magaciisu waa Dhicis generaalka Dhicis baa naanaystiisa la yidhaah waa last name-kiisa awowgii weeye isagu waa ina Khaliif General Cabdiraxmaan Khaliif Dhicis waxaa la yidhi nimaan naanays lahayn waa ri aan gees lahayn waxaa weeye generaalku suu u sheegay annagu inaan intayda ku darsado wuxuu yidhi halgankii gobolladan khaatimo ay ka ahaydee waqooyi keliya may ahayn koonfurtay ka dagaalantay iridda aamin waad og meesha la yidhaahdo bay joogtay waxay tagtay meesha la yidhaahdo ilaa rab dhuure aata oo gobolka bakool hadda la yidhaahdo way gaadhay xaggan iyo gobolkan ogaadeen la yidhaahdo hadda ama kifilka shanaad way jirtay gobonnimo doonkii daraawiishtu oo meelaha qaarkood waxay ku jirtaa xuduudka dhulka dagaalada waaweyne ka dhaceen sida daratoole cagaar weyne dagaaladaasi waxay ka dhaceen hadda dhulkan kifilka shanaad la yidhaahdo gurdumi kuwa kaleento waa 42 dagaal inta ay daraawiishta ay isdileen nimankii caddaanka ahaa ee waddanku inta ugu waaweyn unbaa dadku yaqaanaa waa 42 cagaar weyne daratoole taargooye ruuga beerdhiga jidbaale dulmadoobe waa inta la yidhaahdo waa ugu waaweynaayeen cagaar weyne waa meesha keliya ee uu nin cadi ugu dhimasho badnaa laakiin waxaa ka magac dheeraa meesha dulmadoobe oo koofil ku dhintay koofil oo la dilay 9 August 1913
marka haddana midnimada Soomaaliyeed nin baa wuxuu yiri magaalada joogo kaftaba reerku waa shiraa ama khaatuma way shirtaa markay shirto dadka kale ee Soomaalida mar haddaan central government jirin danaha iyagu leeyihiin bay ka hadlaan uu dacadeynay waa nima reer khaatuma dadka aad u jecel khaatuma way shirtaa waxay yiraahdaan buuri Soomaalinimadu waa muqaddas wax kale ma soo saaraan buuri Soomaalinimadu waa muqaddas marka Soomaalinimada haddii lagu sheegay way fiican tahay waa wax wanaagsan waxaan idin oran lahaa cayda yaana laga deynin anigu intaas aan idhi cayda yaana laga deynin Soomaalida waxay tiraahdaa cadho qamuyo ugama darto cadho baa cudur xoolaha gala qamuyada ugama dartaa leeyahay tolla balgeeleegi bahashaas saysa hadda haddiina la caayo waxbaan noqonaynaa waa mahadsannahay waa mahadsantihiin yaana ammaanta haddana waa isdhiganaynaaye haddana waxaan ku soo dhaweynayaa colonel cabdiqaadir maxamed warsame galbeyti ags سلطانك هو كذا بسم الله الرحمن الرحيم أول وحن لها أرتو ولا يرداري لكن وحكير صعب كي كنسي يبطولي يلبي هدي اللي يرادو وحا إي شرفة مرلبات إن كقيب قالوا حفلة سنة قردي لبعض خاطبة ستيت sharaf weyn bay ii tahay tii koobaadna waa ka qayb galay asaaskeediina waa ka qayb galay ilaahay mahadiis hadda iyo wixii ka dambeeyana anoo u rajaynaya sida hadda ay tahay iyo si ka fiican inaan ka qayb galo cimri iyo caafimaad ilaahay isku kaayo kulmiyo inkastoo qolyo ishidaynayayoo nin ina bidhaan la yidhaaho iyo ay yiraahdeen markay ogaadeen hooyaday Hargeysay ku nooshahay oo joogta ay yiraahdeen habarkiina Hargeysay ku joogta adiguna maalmo beeto shir khaatamaad istaagaysaa oo kamaraysa ayadana waa iska maartay hawsheeda waa ayada murtidu aagaas khaatumo ku badan tahay xoogaa waxaa noo saxay kinsi baa noo saxday barbariiqad iyo waxyaalo jirjira waa iyada geela Soomaalidu geela iyo shubato oo ceelasha ka shubato wadaanta iyo lagu tuurto marka ninka xoogga yar waa la riixaa wadaantiisa waa la isku riixaa marka nin baa wuxuu yiraahdaa la yiri wiil lagu sheegi jiray oo oran jiray wiilkaas odagaas dhalay ayuu wuxuu yiri warmaandow igama dhagay yaride ceelka haygu ridin haatan awal waxaan moodayay in layga dhagay yar yahay laakiin dhaga waa la wada qabaa waxyaalaha sharqamaha ah iyo sida wuxuu jiraan waxaa ka hosgareeyay strategical position oo ay ku taalo mantiqadatan caawa aan u xafladaynayno sanad guuradii labaad khaatumo ayaa sabab u ah waa karaatara gooniya oo keligeed ay leedahay oo dad kale oo Soomaali oo leh aysan jirin waa very tough position waxayse uga dabaalanayaan Soomaali jaceylkooda waxtarkooda halgan u dagaalankooda gobonimada iyo midnimada Soomaali raadinteeda ayay uga dabaalanayaan laakiin wax waa jirjiraan marka xaaladda ayaa adage doqon lama ahan rag baa waliba la yahay sida ma taqaanaa wax yihiin haddana waxaan rajaynaynaa haddii alla yiraahdo
inta deriska ahina inay walaaltinimo iyo deris wanaag ku wada noolaadaan sidii lagu wada noolaan jiray iyo si ka fiican khaatumana waxaan u rajaynaynaa guul wacan inay ku noolaato ayaan rajaynaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. haddaan taytalkii kale haddaan siinayaa suldaan cabdilqaadir maxamed galbeete waa mahadsan yahay aad iyo aad buu mahadsan yahay nin baa wax qaybiya wuxuu yidhi anaa iska tegayba shuu isagaa isilaaway hadda dadka qofkaan isugu dhoweyn baan ka tegay ee inta aan khudbad iyo marba qof ugu yeedhaayo Faadimo Cali Nagruma nin baa yidhi baa la yidhi Soomaalidu say wax isugu tahay isma taqaano marka Faadimo Cali ina Cali weecshe naanaysta dad ma wada taqaanaan ku soo dhawow Faadimo waa abwaaradii xadigtii Soomaaliyeed fanaanadii fanka hooyada Faadimo Cali Nagruma Faadimo haddana ku soo dhaweynaya waa mahadsan tahay waa walaalkay Soomaalidu waa runtiis mahmaadu sheegay anigu ma sheegi karo maxaa jira af Soomaaligan ku liita af Ingiriiskan ku badiyaa anigu qaatuma ha noolaato qaatuma ha jirto ha joogto waa la kowsanay waana la labaysanaynaa waana la saddexaysanaynaa I'm still strong, I'm young. Yeah. Alluta continua. Waxaa sharafii ah inaan ka soo qayb galo xafladan lagu xushmadeynayo sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay Qaatumo. Waxaan salaan u dirahayaa anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca fanaaniinta madaxda reer Qaatimo iyo shicibka reer Qaatimo iyo kuwa isku soo dabriday xafladan quruxda badan ee reer Qaatimo oo reer Toronto waxaa la yiri hanaankii taleexiyo kuwii Qaatimo horseedadii mahuraankiyo hambalyiye salaan iyo sharaf heer sara iyo horseedkii xornimadow naga hooyo oo jira hanaan dawladnimo Qaatimo ayaa lagu hubaa horseed iyo geesinimo Qaatimo ayaa lagu hubaa halgan soo jireena Qaatimo ayaa lagu hubaa garaado shicibkooda haga Qaatimo ayaa lagu hubaa hiil aan lala kala harin Qaatimo ayaa lagu hubaa halyeeyadii Qaatimo hareeraha iyo gadaal hortiinaan taaganaa we are with you we are around you are not alone halyeeyadii Qaatimo hareeraha iyo gadaal hortiinaan taaganahay Qaatimo hogaamiyo dalkeenii wada hantiya SSC waagayi gobonnimo ku caano guutadii daraawiishta lagu soo gardaashay SSC waagayi gobonnimo ku caano guutadii daraawiishta lagu soo gardaashay gobweeye gurigooda laga helo taariikh undheeriyo halyeygeesi diriraaya gobweeye gurigooda laga helo taariikh undheeriyo halyeygeesi diriraaya ha jirto Qaatimo we are in Qaatimo
Allo, il est bien la guerre, à tout le monde. waa mahadsan yihiin fanaaniinta iyo abwaaniintaba haddana waxaan odayadii baa wax yar inoo hadheen keeg baa yaalla magaca khaatumo loo kala tegi maayo haddaba aan ku soo dhoweeyo صحفيga weyn journalistaha taqaanaan ama la yiraahdo maxamuud maxamed muuse oo isaguna halkan laba kelmadood ka yiraahda raaliga hodan laba kaliya ku qabtay بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين وسلامتين waxa way Cabdirashiid waxa uu iga daba mariyay Faaduma Cali Nakruuma hadaayana waxa laga daba mariyay Xaaji Daahir nin runtii haas idin ka tumay marka ninkii laga dambeeyay runtii waxaad u arkaysaan waxa weeye waa boring waxa weeye war idinkoo jadbaysan baa waxa soo galay Xaaji Daahir haddana Faaduma Cali Nakruuma ayaa codkeeda halaasiga ahaa marka labada yadaba hadii aan boorin idinku noqono iga raali ahaada aniga waxaan rabay inaan runtii u tahniyadeeyo munaasabadan dadkii soo agaasimay ka shaqeeyay iyo sanad guurada labaad ee Khaatumo intaba waa u tahniyadeynaya waxa weeye sanad guuradii koowaad aniga waxaan kaga qayb galay Ohio Columbus
runtii si xafladaysan oo cajaa'ib ah ayaa loo soo abaabulay marka waxa weeye waxaan rabay kaliya xafladda idinku xigi doonta inaad isbarbar dhigtaan khaatumo maanta halka ay joogto iyo sanad guurada tan xigta halka ay higsanayso nin professora waxa la yiri wuxuu soo hor istaagay ardaydiisa ayuu soo hor istaagay markaas wuxuu u keenay dhalo wuxuu kala soo baxay mayonnaise-ka lagu shubto mayonnaise-ka la mariyo ayuu soo bixiyay waaka aniga idin sheegay Faadimo Cali Romanik ka dambe xagga waxa ka yeeray waa ka cudurna marka professorkii markii uu dhaladii soo bixiyay wuxuu yiri dhaladan maxaa ku jira maxaa ka aragtaan oo idinka muuqda waxay yiraahdeen waxba boostadiisii ayuu furay wuxuu ka soo bixiyay golf ballska banooniyada maaragtay lagu ciyaaro golfska dabeedna wuxuu ku riday dhowr xaba ayuu wuxuu ku riday dhaladii arrin baan uga dan leeyahay arrintan markuu ku riday buu wuxuu yiri quraaradan mayna dhaladan miyay buuxdaa ardadii waa fiiriyeen oo waxay ku yiraahdeen waan filayaa inay buuxdo waa buuxdaabe dhaladii way buuxdaa dabeedna boorsidiisuu furay wuxuu ka soo bixiyey dhagxaantan yaryarka ah ee pebbles-ka loo yaqaano dabeedna dhagxaantii buu ku shubay waxay dhaheen mar kale wuxuu weydiiyey war dhalada ma buuxdaa war iminka way buuxdaa bay yidhaahdeen dabeedna wuxuu soo bixiyey ciid buu soo bixiyey sand carradii buu ku shubay way yaabeen war quraaradan miyay buuxdaa oo way buuxdaa bay ku yidhaahdeen dabeedna wuxuu soo qaatay cup of coffee buu soo qaatay oo wuxuu ku shubay haddana markaasuu weydiiyey waxaan uga dan leeyahay waxa weeye ninkaasi wuxuu tusayay ardadiisa waxyaabaha priority-ga ah wuxuu ku tilmaamay banoonigii weynaa inuu yahay priority-ga familkaaga ehelkaaga caafimaadkaaga dabeedna wuxuu yiri quraaradaha yaryarka ah ee aan ku shubay pepperska ahaa waxa ay ka taagan yihiin friends iyo qofka la soconayso sida marka waxa uga dan leeyahay priority-giina waxa weeye cidna uma maqna ceelna uma qodna idinka ayaa leedinka baahan yahay munaasabada xigta halka aad gaarsiisaan khaatumo inaad u hiilisaan inaad taageertaan inaad wax u qabataan marka khaatumo ha noolaato khaatumo waxaan jeclaan lahaa waxa weeye waxay u noqonaysaa hiil iyo ehelba waxay u noqonaysaa dadkeena ehelkeena ama Puntland ha noqoto ama Jubbaland ha noqoto maamul goboleed kasta oo dhisma oo aynu ehelnahay innaga ama Soomaali ah innaga ayuu waxina taraya wassalaamu calaykum waraxmatullaah أمام موسى ومهدسية وحال لي هي odayaashu wax yar raali ha ahaadeen gabdhaha jooga activista oo wali hadal aad baa loo badan yahay heestii khaatumo markii hore waa sheegnay laba qaadin baa la yiri heestii khaatumo waa in hadda la qaado khaatumo heesteeda noogu dhufo maxamedow bismillaahi raxmaani raxiim heestan waxaa samaysay gabadh la yiraahdo xayaad cabdullaahi gelqaad xayaad waxay samaysay heestan 2013 sanad guuradii koowaad ee khaatumo balse waxay ku tilmaantay heestan waqtigii ay samaysay ama ay ugu talagashay inuu ahaa waqtiga la joogo maanta marka heestii walaasheen noo samaysay xayaad cabdullaahi iyo khaatumo
Somebody